al-shabaab waxay muqdisho ka bilowday inay lacag ka qaado qofkii dakhliga billaha ah ee soo gala uu ka badan yahay $1,000 noqo harqaan leh kirishboy mid hay'ad u shaqeeya amaba nin iskiis u leh shirkad waxay kooxdani ka doonaysaa lacag ay ugu magacdareen canshuurta muslimka tani oo hadda muqdisho ka socota waa dhibkii ay horay u qabeen ganacsatada Soomaaliyeed ee hantida ku leh dalka ee ahaa in lacago tiro badan laga qaado oo hadda lagu biiriyay in si shakhsi ahna qofka ay lacag uga qaataan Ahmed Naasir iyo Jibriil oo intooduba aan magacyadooda bedelnay xaalad amni darteed ahna rag kala xirfad duwan balse lacago badan ay soo gasho ayaa inoo xaqiijiyay in laga soo wacay taleefanka gacanta laguna amray inay iska bixiyaan canshuurta muslimka kadib markii loo sheegay in lacagta soo gasha ay ka badan tahay $1,000 waxa loo raaciyay hadalka haddii ay bixin waayaan in naftooda ay u aanoobi doonto waxay inoo sheegeen in bishii ugu horeysay laga qaaday $300 handadkan xadka goostay wuxuu ka dhex jiraa caasimadda xarunta u ah dawladda ee wasiirkeedii amnigu marna iska hurdayo marna isagiiba u baxsan la ganacsigiisa shabaabku bilooyinkii u dambeeyay waxay labalaabayeen sidii lacag ay uga sameyn lahaayeen gudaha muqdisho waxayna ku soo bilaabeen inay lacaga ka qaataan ganacsatada kuwooda hoteelada leh dukaamada ganacsi ee waaweyn iyo kuwa la soo dega alaabaha laga keeno dalka dibaddiisa balse hadda waxay bilaabeenba inay lacaga badan ka sameeyaan qofkii ay xog ku helaan inay soo gasho lacag aad u badan muqdisho oo shaqooyinku ku yar yihiin aadna ay u adag tahay in bishii $1,000 qofku mushaar ahaan u soo gasho haddii aanu ahayn mid afmaal ah oo dhexda uga jira dadka hantida haysta amaba aanu ahayn mid hay'ad u shaqeeya ayaa hadda galaysa waa cusub xaaladahan oo dhan xalkeeda waxaa laga sugayaa wasiirka amniga ee iska quurinaya ee tan iyo markii ra'iisul wasaare Roble uu sida gacan qabadka ah u geeyay xafiiska aan xitaa 3 goor oo isku xigta xaadirin waa wax aan la qarin karin sida xaaladda amniga dalku ay faraha uga baxday iyadoo maanta ay marayso in ururka shabaabku ay lacaga ka qaadaan qofkii lacag yar soo gashay oo laga yaabo inuu si adagba ku helay in amnigu sii xumaaday tan iyo markii wasiir Cabdullaahi xilka qabtay waxa cadeyn u ah in qaraxyadu kordheen dhaca askartu kordhay shabaabkuna canshuur qaadistoodu dardargeliyeen iyo in askartii amniga sugaysay ay gacantooda ku dileen dhalinyaro badan oo dalkan u ahaa shumac u soo baxay welina aan cid loo qaban tusaale kale oo weyn oo muujinaya in wasiirka amnigan ku magacaaban uusan kala jeclayn amniga dalka ayaa ah in xitaa isaga ilaaladiisu ogolaansho ku siiyo inay jidka rasaas ku furtaan wixii ka yimaadana isaga uu ka jawaabayo iyada oo 4 November ciidankiisu ay rasaas huwiyeen gaari uu lahaa wiil dhalinyaro ah kaas oo ilaa iyo hadda aan looga garaabin dhibkii soo gaaray